واي حتى waxaan u yeeri doonaa Sidiiq Umar oo ah lead instructor macallinkii course-kan wax ka dhigayay full stack ayuu ka warrami doonaa coding bootcamp marka waxaan u yeedhanaa Sidiiq Umar oo soo dhawow dhammaantiin waxaan ku soo dhaweynaynaa eventigan ardayda dhamaysanaysa full stack coding bootcamp-ka waxaan si degdeg u geli doonaa eventigan wuxuu kuseeyo oo hore looga hadlay sidoo kale marka eventigan saad ka warqabtaan waxaa loogu talagalay in ardaydu kusoo bandhigaan softwareadii ay sameeyeen si ma garanaysa aad u arki kartaan awoodoodii waxay dhisi karayaanba marka guud ahaan waxay qaadanayeen course-kan full stack coding bootcamp-ka 20 week 20-kan waxay qaateen 4 qaybood oo kala duwan qaybta ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa front-end development marka front-end development waxa weeyaan inaad dhisto UI ama wixii soo muuqanaya ee software-kaas intaa ka bacdi waxay dhigteen wax loo yaqaano back-end technologies gaar ahaan iyagoo awoodda saaraya JavaScript frameworks oo Node.js iyo Express ay barteen marka waxay awood u leeyihiin inay dhisi karaan API kala duwan kuwaasoo la soo xiriiri karayaan ama ay la hadli karayaan platforms iyo front-end frameworks kala duwan hadday tahay mobile development hadday tahay web hadday tahay smartwatches systemya ay magaranaysaa la hadli karayaan ama la shaqayn karayaan si xogtii loo kaydiyo systemyada ay sameeyeen waxay dhigteen labada qaybood ee databaseska gaar ahaan SQL databases oo ay ka barteen waxa loo yaqaano PostgreSQL database dhinaca NoSQL databaseska waxay barteen waxa loo yaqaano MongoDB oo ay ku dhiseen systemyo kala duwan intaa ka bacdi markay intaa dhamaysteen ardaydu waxay dhiseen systemyo kala duwan kuwaasoo ay kaga qayb qaateen si ay u kordhiyaan experience-koodii skillka ay u leeyihiin inay magaranaysaa design systemyo real world oo problems xalinaya guud ahaan 2 stack oo waaweyn ay dhigteen oo standard ah gaar ahaan technologies-ka ugu dambeeyay waxay dhigteen waxa loo yaqaano main stack oo ah MongoDB, Express, React iyo Node.js oo ah stack isku dhameystiran oo suuqa laga shaqeysan karayo soo kale waxay dhigteen waxa loo yaqaano main stack oo ah Postgres, Express, React iyo Node.js kaasoo isaguna stack ka duwan kii hore ah still iyadoo la isticmaalo technologies-ka qaar inay isku mid yihiin intaa ka bacdi waxay xaliyeen problems waaweyn oo real world ah iyagoo ku base gareynaya baahida suuqa ka jirta iyo magaaladaba intaa markay sameeyeen waxay awood u leeyihiin systemyadii inay kusoo kordhiyaan ama ay ku xidhaan kaloolka iyagoo isticmaalaya waxa loo yaqaano shirkadaha waaweyn ee ugu waaweyn kalool platformska gaar ahaan AWS intaa ka bacdi ardaydu maanta waxay kusoo gudbin doonaan ama ay tusi doonaan systemyadii ay dhiseen iyagoo isticmaalaya technologies-ka kala duwan oo qofku qayb kastoo ka mida gaarkeeda ugu shaqaysan karay hadday tahay front-end development qofku gaarkeedu front-end development ugu shaqaysan karaa hadday tahay back-end development gaarkeedu ugu shaqaysan karayaa hadday tahay cloud computing iyadana sidoo kale gaarkeedu qofku ugu shaqaysan karaya marka halkan waxaad ka fahmaysaa inay ardayda yihiin arday dhammaystiran oo dhinac kasta ka dhisan marka iyagana kusoo wareejin doonaa waxaada loo dambeeyo dee magaranaysaa la sii sheega ma jiro waxaan idinku soo dhaweynayaa markaa bal inaad systemyada eegtaan